بسم الله الرحمن الرحيم ومعلن انجينير حسن محمود فرقله kusoo dhawaada koorso cusub oo aynu ugu talagalnay insha Allah inaynu kor ugu qaadno dhalinyarada da'da yar ee jecel inay isticmaalka kombiyuutarka awood ay u leeyihiin kor u qaada maanta waxaan idin wadaa koorsadii aan idin ballan qaaday in aynu bilowno waa koorso base ah oo aan adkeyn waxaan wadaa barnaamijka loo yaqaan office program oo noqday barnaamijka ugu saameynta badan Microsoft shirkadda loo yaqaan America laga leeyahay ay sameeyso oo ah office barnaamijka inta badan laga isticmaalo xafiisyada laga isticmaalo magaca ka arkaysa barnaamijkan walaalkeen injineer Xasan Maxamuud baa idin soo jeedinaya waxaanu ka soo bilaabi doonaa insha Allah hadii la yiraahdo afar book baynu arki baran doonaa waxa ugu horeeya Microsoft Word program oo ah waxa loo yaqaano in uu qofka aanu barno bal in uu computerkii Word program uu isticmaali karo Word program waxa loo yaqaan waxa weeye waa warqadan cad oo aynu jeedno hadeen hortaala oo shaashada aynu hadda ka aragno waxaanu sameyn karnaa marka ani qoraal walba aynu awoodi karnaa ku qoran karnaa waxaan iska joojiyay inaan ku lumiyo waqtigayga ciyaaraha aan macno for example dukumiintiga markaan qortay waan save gareysanaya macna waa barnaamijkan waxa loo yaqaan Word baa loo yaqaan isaga insha Allah mid baan u dhaxgali doonaa insha Allah hadii la yiraahdo waxaan kala baran doonaa waxa loo yaqaan Microsoft Excel program oo ah barnaamijkan waa barnaamijka loo isticmaalo inta badan small calculation inuu sameeyo ganacsi yar baa ku hawlanta ku jirta waxaad ku qoranaysaa waxa loo yaqaano ganacsigaagii baad ku qoranaysaa wax ku qoranaysaa shaqooyinkii markaa ku yaalay wax ku qoranaysaa alaabtii ku taalay baa ku qoranaysaa مثلا اسكول بعد ما ملكته وكذا ardayda fasalka magacyadooda ay dhigooda fiigay bixiyeen maadooyinka ay galeen waxa loo yaqaan codceliskii levelka ardayga koow galay all insha Allah waxaan baran doonaa walina formulas uu taageera formulooyin badan oo lagu base garanayo insha Allah la sharxi doona sana barnaamij noocaas ayuu noqon doonaa insha Allah barnaamijka saddexaad insha Allah baran doona waxa loo yaqaan PowerPoint waa barnaamijka loogu talagalay for advertisement xayisiis ama for presentation oo ah in wax lagu soo bandhigo barnaamij weeye lagu soo bandhigo result ama waxyaabaha xayisiinta ah loogu talagalay in lagu soo bandhigo shirkadaha isticmaala kambaniyada isticmaala macallimiinta ayaa u isticmaala casharadooda inay ku fahansiiyaan ardayda wax walba la soo bandhigay baa loo isticmaala xayisiinta loo isticmaala ugu dambeyn waxaan ka doonaa waxa loo yaqaan Microsoft Access program oo ah small database and create access waa barnaamij diyaar ah database ah oo ku jira Microsoft Office-ka oo isna markii aynu u baahnayno isticmaalayno mesela Microsoft Access-kaas wuxuu inta badan isagoo naga taageeraya tables badan baa jira relation baa laga dhaxabuuraya then waa database caadi ah kiibuu ka weynaanaya Excel-ka sawirra la soo gelin karaa xiriirada laga dhaxabuuri karaa projectors wax ka wada tables baa laga dhaxabuuri doonaa marka insha Allah barnaamijkaas waa barnaamij loo yaqaan Access insha Allah inta qofkii barto si fiican wixii aan idin fahansiiyeen u baraad karaya waxaan rajeynayaa insha Allah hadii la yiraahdo inuu si fiican uu awood u yeelan doono inuu xafiiska shaqeeyo dukumiinti diyaariyo xisaabaad u xiro PowerPoint wax loo yaqaan xayisiis uu sameyn karo access uu database ku sameyn karo maamul uu xafiis uga shaqeyn karo xogeyn uu noqon karo insha Allah baan rajeynayaa hadii la yiraahdo waxaan leeyahay insha Allah la soco cashirka labaad oo ku xiga insha Allah. Assalaamu calaykum.